diidmada qayaxan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dalbatay xabajoojin ciidamada cirka ee Israa'iil ayaana xalay hirgelin taasina waxay sababtay inay weerar qaadaan ciidamada cirka ee Israa'iil kuwaas oo ku bartilmaameedsadeen Xisbullah iyo Lubnaan waxa uu ka helay iskuul iyo masaajid marka magaciisa soo gaabiyay la yiraahdo UNWRA kantaala ayaa lagu weeraray koonfurta Israa'iil in ka badan 168 haystayaal wali ayaa lagu haystaa Gaza wasaaradda caafimaadka ee Hamas ay maamusha ayaa sheegtay in 17177 qof la dilay 46,000 oo qofna ay dhaawac yihiin saddex xubnood oo ka tirsan kooxda Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ee Lubnaan ayaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ka fuliyeen koonfurta galbeed ee Suuriya jimcihii sida laga soo xigtay labo ilo wareed oo gobolka u dhow gaar ahaan Dimashq weerarka ayaa sidoo kale lagu dilay qof Suuriyaan ah oo la socday mid ka mid ah ilo wareediyo ayaa sheegay ciidamada Israa'iil ayaa diiday inay ka hadlaan duqeynta ka dhacday Quneitra oo sidoo kale loo yaqaano Beat City oo u dhow xuduudka Golan Heights ee Israa'iil ay haysato Israa'iil ayaa sanado badan halkaas weerar ku qaadisay waxayna ku tilmaameen bartilmaameedyada Iiraan ee Suuriya halkaas oo saameynta Tehran ay kor u kacday tan iyo markii ay bilowday inay taageerto madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad dagaal sokeeye oo bilowday 2011 Vladimir Putin madaxweynaha dalka Ruushka uu yaqaan sida loo galo afarta diyaaradood ee Su-135 ee la socday diyaaradihii madaxweynaha Arbacadii waxay ka soo kicitmeen Moscow ilaa Riyadh iyo Abu Dhabi salaanta 21 qori oo ay rideen madfacyada Imaaraadka ilaalada sharafta leh ee albaabka laga soo galo qasriga iyo salaanta adag ee Mohammed bin Salman dhaxal sugaha Sacuudiga iyo Mohammed bin Sayid oo ah madaxa Imaaraadka Carabta ayaa la buuxiyay warbaahinta dalka khaliijka halkaas ayay ciwaanadan si wanaagsan ugu tartamayaan warbixinada dagaalka ee Gaza halka Gaza ay qabto inta badan ciwaanada faalooyinka iyo muuqaalada fiidiyoo ah ma aha dhammaan iyo dhamaadka dhan sidoo kale Falastiiniyiintu waxay joojiyeen su'aasha oo ma aha markii ugu horeysay halka ay joogaan madaxda Carbeed iyo aaway dunidii dhibaatada nagu haysatay bay dhahan IDF ayaa ka warbixisay dagaal habeen hore ka dhacay waqooyiga Gaza iyadoo ay sheegtay in diyaaradaha ciidamada cirka ay burburiyeen kaabayaasha dhaqaalaha ee Hamas askartuna waxay ku dagaalameen oo dileen argagixisada meel u dhow iskuul ku yaal xaafadda Shujaiciya oo kamid ah goobaha ay beegsanayaan Israa'iil aaga iskuulka ciidamada Israa'iil waxay ka heleen gudaha fasalada qoryo weerar bombgacmeedyo iyo rasaas badan waxa kale oo ay ka heleen oo ay burburiyeen dhowr tunnel oo ay ku jiraan hub iyo mid wiish leh inta waxa dheer askartu waxay ka howlgaleen Beit Hanuun oo ay weerareen argagixisada oo ka soo tagtay bay dhaheen meesha masaajid iyo dugsi UNRWA la dhaho dhanka kale Hamas ayaa duqeymo gantaala ku qaaday koonfurta waqooyiga iyo bartamaha Israa'iil iyo goobaha ay ku soo yihiin ciidamada Israa'iil waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato 64 maalmood oo dagaalku socday Mareykanku waxa uu diiday codsiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa xabajoojinta bini'aadantinimo oo degdeg ah oo dhex martay Israa'iil iyo Hamas ayaa cambaareysay USA diidmada qayaxan oo bayaan ay soo saareen sargaal sare oo ka tirsan Hamas ayaa sheegay in kooxdu argagixisada ay tallaabo u aragto mid ka baxsan anshaxa iyo bini'aadantinimada wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan al-Saud ayaa habeennimadii Jimcaha kula kulmay Washington dhigiisa Mareykanka Anthony Blinken wasiirka arrimaha dibadda wuxuuna ugu baaqay in la fuliyo tallaabo degdeg ah si xabajoojin looga sameeyo qasas si loo gaarsiiyo cunto iyo qalab caafimaad dadka deegaanka ee Mareykanka qasab ku go'doonsan ilaa iyo Jimcihii la soo dhaafay ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa xalay weerar ku qaaday bartilmaameedyada Xisbullah iyo Lubnaan oo ay ku jirto goob loo isticmaalo xarun hawladeed ayuu yiri afhayeen u hadlay IDF kadib markii ay ka soo dhashay Lubnaan gudaha Israa'iil xilli habeen ah wararka ugu muhiimsan Gaza Iiraan 6 weerar oo cusub ayaa la beegsaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Syria oo ku jiro gantaal lagu weeraray safaaradda Mareykanka ee Baghdad kaas oo qayb ka ah howlgallo xidhiidh ah oo taageerayaasha Iiraan ay ku sheegeen inay jawaab u yihiin dagaalka Israa'iil ee Gaza maanta sabtida warbaahinta Israa'iil ay soo xiganaysa ila siyaasadeed ayaa sheegtay in uusan jirin qorshe lagu daadgureynayo dadka degan marinka Gaza oo u dhow xuduudka Masar iyadoo ay sii socon doonaan barakaca kumanaan Falastiiniin ah oo maalin kasta ka soo qulqulaya halkaasi maadaama ay duqeymo ka socdaan ilowradiyo Israa'iil ayaa inta ku daray in xiriirka Tel Aviv iyo Masar uu yahay mid istiraatiiji ah oo muhiim ah waxaana labada dal ay iska kaashanayaan si looga hortagi lahaa dad badan oo Falastiiniin ah oo ku sugan Gaza inay xoog ku galaan xuduudka Sinai sida uu hadalka u dhigay dowladda Masar ayaana wali ka hadlay hadaladan barakac ayaa ka socda halkaasi maalmihii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin uu ka diyaariyay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan marinka Gaza oo ay ku jirto masiibo bini'aadantinimo oo aan hore loo arag taas oo sababtay duqeynta loo geystay isbitaaladeeda iyo ka hortagga in gargaar loo soo geliyo iyagoo xaqiijiyay inay sii shaqeyn doonaan ilaa inta laga gaadhayo
dagaalku uu joogsanaya ama geeri baa dhacda ay yiraahdeen dhakhtarka ayaa muujiyay sida uu ula yaabay mowqifka dunida ka taagan tahay waxa ka socda marinka Gaza wuxuuna yiri ma garanayo sababta ay u aamusan yihiin naguna dacweynayaan beesha caalamka waa markii ugu horeysay ay bini'aadamku ka aamusaan xaaladda sidaan oo kale ah oo duqeyna oo maalin kasta soconaysa dhanka kale maamulaha xarunta caafimaadka Al-Shifa Dr. Maxamed Abu Salamiya wuxuu sheegay in shaqada ay ku xukuntay dhammaan dadkii ku sugnaa xarunta sida ay ku dhaawacmay kuwa buka kuwa barakacay iyo kooxaha caafimaadka ah oo dil bareer ku sugan maadaama ay beegsanayaan askarta Israa'iil